Majalada Forbes ayaa soo saaray liiska dadka ugu hodansan dunida, iyadoo tilmaantay in dadka bilyaneerada ah ay tiradoodu gaadhay 755 qof, waana in ka badan 660 qof tiradii sanadkii hore. Hantida ay haystaan bilyaneerada dunida ayaa iyana kor u dhaaftay 13 trilyan, waana in ka badan 5 trilyan tiradii sanadkii hore. Dalka Mareykanka ayaa ah dalka ay ku nool yihiin bilyaneerada ugu badan caalamka, waxaana ku nool 724 bilyaneer. Halka Shiinaha ay xawli ku socdaan kobaca bilyaneeradiisu uu kaalinta labaad ku jiro, isagoo ay ku nool yihiin 698 bilyaneer. Sanadkan oo kaliya 210 bilyaneer oo cusub ayuu yeeshay waddanka Shiinaha. Shantii maalmood ee kasta 3 qof baa bilyaneer noqda gudaha waddanka Shiinaha. Majalada Forbes sidoo kale waxay soo saartay 10 magaalo ay ku nool yihiin bilyaneerada ugu badan caalamka. Dalka Shiinaha ayaa ku yeeshay 5 magaalo, halka Mareykanku uu ku yeeshay 2 magaalo oo kaliya. Magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha ayaa noqotay magaalo ay ku nool yihiin bilyaneerada ugu badan adduunka, waxaana ku nool 100 bilyaneer. Halka New York oo awal hore kaalinta koowaad ku jiray ay maanta fadhido kaalinta labaad, waxaana ku nool 99 bilyaneer. Hong Kong ayana soo celisatay kaalinta saddexaad, waxaa ku nool 80 bilyaneer. Magaalada Beijing qofka ugu hodansan waa aasaasaha madasha caanka ee madadaalada ee TikTok, wuxuuna haystaa adduun lacageed oo dhan 35 bilyan. Hantidiisa kala bar sanadkan ayay korodhay ama ay saayiday. Guud ahaan Shiinaha waxaa ugu hodansan maalqabeenka lagu magacaabo Shang Shansu oo haysta adduun lacageed oo dhan 68 bilyan, wuxuuna ku nool yahay magaalada Hangzhou ay ku nool yihiin 47 bilyaneer oo haysta isku darka adduun lacageed oo dhan 269 bilyan. Halka Afrika oo ay ku nool yihiin 18 bilyaneer oo kaliya oo haysta isku darka adduun lacageed oo dhan 73 bilyan. Magaalada Beijing oo caasimadda waddanka Shiinaha magaalo hoy oo ah 100 bilyaneer, waana in ka badan 5 jeer inta ku nool Afrika oo idin. Magaalo ka bilyaneer badan magaalo kasta oo caalamkan ah.